ayaan leeyahay sibood grazio adigu waliba waxaan ku leeyahay Italia tulle shuqti fi afegmuwa maalin walba adan kula socda Soomaad garan onifa baan ku leeyahay Talyaani marka waxaan leeyahay onifa tifi afegmuwa tulle shuq maalin walba macna adan kula socda imaka inta ciyaartaasi caawa ka gaarayso insha Allah ama habeen dambe salaam alaykum waxa la yiri marka sportiga la joogaday qolana waxa loo baahan yahay maartay sportiga rugcadaagiisii maalkii iyo maskaxdii buu hayaa moogta daayartuna muruqi iyo guushi iyo fudaydkii baahiya haddaba aanu qoladii malaha muruqa iyo maskaxda ayaan wakiil ka ahay maanta waxay noogsoonahay koobkii Yuuradu inuu watiyo badan soo maray gabagabana uu taagan yahay finalkiina lagu qaban doono garoonka Wembley ee dalka Ingiriiska haddaba markaynu eegno Ingiriiska iyo Talyaaniga waxay noogsoonay ciyaaraha Premier League inta badan ay baray Ingiriiska soddon sano bay joogaan anu waxaan aad ula socon jiray ciyaaraha Talyaaniga oo ninkii aad sabriyo oo noo kala weynay jiray moogtahay marka waxa weeyaan Ingiriiska iyo horta maxaa ka dhaxeeya sidoodaba xifaaltan ciyaareed ma leeyihiin haayo mar waxa jirtay Ingiriiska koox ka tirsan oo la yiraahdo Liverpool iyo koox ka tirsan Serie A-da maaragtay Talyaaniga oo la yiraahdo Juventus ay ku ciyaareen magaaladii bay iga baxsan imika dalka Talyaaniga dabeetana meesha waa la isku dilay dhowr iyo 30 qof baa bariga ku dhintay gacantaas u horeysay waxaad moodaa marka xagga xitaa dabeecadda iyo xanaaqana inta badan Ingiriisku waa dadka xanaaqa weeyaan maantana guriga lagu ciyaaraya waa guriga Ingiriiska waxaynu isweydiinaynaa koobka hadduu Talyaanigu qaado maxaad u malaynaysaa Ingiriisku muxuu sameyn karaa Ingiriisku hadduu helo Talyaanigu waji noocay oo halka kala caraabi doona waa su'aalo badan oo inaga inoo yaala marka anigu haddaan imika u fiirsado Talyaaniga waxay noogsoonnahay Yuurada finalka wuxuu yimid 4 goor imika ku afarta goor uu yimid 1966 koobkii ugu dambeeyay Yuurada buu qaaday 2 goor kale oo ku xigtay buu finalka yimid laakiin koob muu qaadin maanta uu afar uu yimid maanta ma qaadi doona waa iyaduna su'aal meesha taala halka Ingiriisku 1955 ay ugu dambeysay koob caalamiya oo dhulka ka qaadaba waxaynu ogsoonay Ingiriisku koobkan Yuurada wali inaanu shaarubaha gelin dhagtiisana qaban isagana halka ciil baa hayo waxaynu ogsoonahay inuu soo jiiday markaynu kooxihii kala ka nimaadno Denmark buu soo jiiday wuxuu kaloo soo jiiday Ukraine uu dhaarsan yahay wuxuu leeyahay koobkani ha yimaado magaalada London iyo gobolka England waliba Talyaanigina wuxuu ku dhaarsan yahay Italia وإنه كذا كوبكو هذا ما أنا هذا طلياني قوي يرفيرصدو وحن إسلاي بعد ما وكسو قولي استحي تا كوبكي وقدام بيه كوبو قادو إيه عالمية وحوها كوبكي لبدي يكون يلحدي وكسو قادي دالك فرنسيسكا إساقو وقول هاي ويهاي بوفان قلادة فرنسيسكنا وعيارتوي هير سراكا يينك الله يراهدو سينادين سيداني قول كيو صوت يارصدي سينادين سيداني إنو كتبالي بوفان باكا قصاري halkaasuu koobkii ku qaaday Talyaanigu hatta wax kale iska daaya diyaarada la kiciyay calankii Talyaaniga lagu sawiray kolkaas ay ugu dambeysay koob u qaado oo caalamiya haddaba isagana waxaynu isleenahay maanta ma qaadi doona haddaba aanu haddaan dib ugu yar noqday imika Talyaaniga ciyaarahani markay bilowday horta kolkiiba Turkiga ayuu gurigiisa la tagay 3 gool iyo eber booga soo badiyay Soomaalidan garan Sooma garanaysiin haddana Talyaanigi ugu dambeyn dhawaanahan dhaxdii waxay wada ciyaareen Belgiumka oo anigu aan islahaa kol haduu Belgiumku ku hubaysan yahay Laporta Eden Hazard mise Eden Hazard kolba kaad u taqaano iyo Kevin De Bruyne waxaan isla dhinaciisa dhulka la dhigi maayo laakiin Talyaaniga wala la dhigto daaqadu ka saaray maayo semi finalkii buu ku reebay halka Ingiriisku iska daa semi final 16 kana xataa aan ka soo gaarin marka koobkan Yuurada la ciyaarayo taasi markuu imika Belgiumkii ka soo gudbay wuxuu sameeyay haddana Talyaanigu maxaan ku yiraahdaa Spain buu la ciyaaray luqluqashada kama dhigan daaqadu ka tuuray marka anigu maanta waxaan filayaa koobka inuu qaadi doono insha Allah
talyaanigu idinkuna maxaad filaysaan qolada ingiriiska taageersanay ma waxaad isleedihiin sida Felis Faarax iyo Mawlid Xaaji Cabdi iyo halkaasay maxaan ku idhahday ku farxi doonaan isagu Sunni Saciid Saalax iska hadiyo isgaandane fiikay Norway buu ka wakiilahaayo wuxuu islahaa Denmark ba halkaa wax ka noqon doonta haddaba waxay noo taala haday falanqeeyo tahay iyo haddii ay tahay qof kale oo caadi oo daawadaba anigu waxaan isleeyahay talyaaniga ayaa koobka qaadi doona laakiin waxaan ka baqayaa ingiriisku inuu xanaaqad la yimaado oo meesha rabshadi ka dhacdo anigu se waxaanan isweydiinin ilaahay xaggiisa ka noqon weydo mooyaane inuu koobkan talyaanigu qaadi doono ingiriiskuna waxa laga yaabaa tab iyo xeel sidii uu koobkan ku qaadi lahaa intaba wuu sameynaya marka waxa weeyaan inaga lafteedna ciyaaraha waxaynu ku aad uga naqaanaa xagga ingiriiska waxaynu fiican inagoo ciyaaraha adduunka oo dhan la soconna imanka waad ogtihiin oo dee maartay waxaynu naqaanaa Ligue 1ka France maxaan ku idhahdaa waxaynu naqaanaa liigaha Spain waxa kale way badan yihiin Serie A Talyaaniga Serie B da Premier League FA Cup waa ka waynu wada naqaanaa wax kale iyaduna meesha ku jirta oo la isweydiinaya oo dadku hami weyn kala ha talow ninkii ilka Gundogan oo Jarmalka u ciyaarayay mustaqbalkiisu sidoo noqon doona kal hadii kooxdiisii uu deshaarkii qaranka ku matalayay ay meesha ka baxday waxa kale oo isweydiin leh hadduu isagu halkaa ku haray ilka Gundogan marka waxa weeyaan bal hadaynu u yarbaydna xagga iyo Latin America waxaynu ogsoonay koobkii halkaa ka socday koobkan Yurada dhinac socday laba kooxood oo waaweyn ba isku soo haray waxa kamid ah dalka Brazil oo gabigoodaba ciyaartoyga dhala oo laga soo qaato Argentina oo aynu garanayno inuu ka soo jeeday ciyaartoyga qiimaha badnaa Maradona iyo waliba Messi marka Messi waxa la isleeyahay waligii koobkan umud dhalinin dalkiisa halkan Neymar dalkiisa u qaaday soo ma garanaysin marka Messi waa dhaarsan yahay wuxuu isleeyahay koobkan yan laga qaadina dalkaaga u qaad Neymarna wuu dhaarsan yahay kowii hore inuu ka daba geeyo doonaya haddana wararka qaar dadka ciyaaraha iiga faradhuubay waxay sheegayaan in maxaan ku raadayay Argentina koobkan ay qaaday 14 goor hadday maanta qaadan laakiin waxay u noqonayaa 15 goor laakiin inta Messi midna muu dhalin hadduu ka maanta wax ka dhaliya ma aqaan halka lagu leeyahay iyaduna Brazil waxay qaaday 15 goor hadday maanta qaadan 16 bay u noqonaysaa mid kale waxa isweydiin leh markaynu kooxaha Ingiriiska iyo kuwan kale is wada barbar dhigno nin walba wajiga uu maanta kala yimaado kooxdiisi uu ugu matalayay dalkiisa ayuu horta meesha la imanaya anigu se dalka Talyaaniga talo maxaan u taageeray anu leeyahay Italia ay sibood anu leeyahay waxaan u leeyahay mar hadii maxaan ku idhahdaayay oo waliba leeyahay win on Super Sunday waynay noo ataa xad wanaagsan waynay noo ataa anu leeyahay waxa weeyaan Ingiriiska waxa kabtan u ah Harry Kane oo Tottenham aad ku garanaysaan waa ninkii ugu cadcadaayay gool dhalintaba keenayay isaga iyo Son iyo Dalcali laakiin muxuu ku xumaaday kooxdiiba uu ka sii laablaabanaya wuxuu yiri marka ciyaarahan dhamaadaan beec baabane halkan doonaan aadaya inkastoo dhowr kooxood oo kala duwan leeyahay way doonayaan midku ku xasili doonana waynu eegi doonaa laakiin waxay muhiimadu tahay mar haddii Tottenham ka laabtay maantana Ingiriiskii uu kabtanka kooxda wadaba yahay aniguna dhabarkaan u jeediyo Talyaaniga ayaan leeyahay sibood Grazio adigu waliba waxaan ku leeyahay Italia tulle shukti fi afegmuwa maalin walba adan kula socdaa Soomaad garan onifa baan ku leeyahay Talyaani marka waxaan leeyahay onifa tifi afegmuwa tulle shuk maalin walba macna adan kula socdaa imaka inta ciyaartaasi caawa ka gaarayso insha Allah ama habeen dambe